السلام عليكم والله وانسل قاعد كلام غنايه قلبه ويسولنا مايا مرة أيوك هذا بيت السودو ما شاء الله ما أنت تيرو طيب ما شاء الله روح مين بنقطين ده كلام غنايه لا هو يدي فوكسون oo nin fiican baa kula socda maanta kii kula ninkii meehe ma sha Allah ninkii waa ka dib wax badan baa ka dibay isaga reebtana ka calool xumaan hayay bagal isaga reebtay nin qurux badan baa kula socda ma sha Allah ii waran fooksoo dhaweynaya maanta timir waan dhawahay rag waa kii wax rugrugo dumar waa kuwii raamsada laba ka hadhay haddii kale ani ma garan lak haddii ani aan qiyaaso waxaan ku qiyaasaa Sacuudiga oo sheeko kale Sacuudiga aan ku warramo Maxamed Sacuudiga inta hadda boqor Salmaan iyo aabiyaha ay qabsadeen koor dumarku xataa baawur ma kaxayn jirin guryaha ku jiri jireen xabsi bay ku jiri jireen laakiin hadda markuu qabsaday boqor Salmaan kalaab neyd baa loo sameeyay baawurtay raacaan nigisay yar bay xidhaan magaaladay wareegaan waxaan kugu soo dhaweynayaa kadis cancel TV magacayga waa Axmed Nuur Yuusuf Axmed oo ku soo dhaweynayaa su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo waxaad ii sheegtaa waxa la jabin karo balse aan la qaban karin waxa la jabin karo aan la qaban karin waxa la jabin karo laakiin aan la qaban karin lama qaban karo waa la jabin karaa laakiin lama qaban karo hada kunta miya kunta wala qaban karaa Soomahan tan waa la jabin karaa laakiin lama qaban karo gacanta dala aadin ma wax kala dhacaya gacanta la aadi karo miya waxaan gacanta la aadi karin ba waa la jabin karaa laakiin lama qaban karo royina wallahi su'aashaas ma garan okay mid kale ku weydiinaya wadankii ugu horeeyay ee muslimo ogolaaday dumarku inay codayn karaan wadankii ugu horeeyay hadaba Turki miya Turki miya waxa weeyaan wadankii ugu horeeyay muslimo ee ogolaaday dumarku inay codayn karaan waxa weeyaan Indonesia aad ma sheega waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka kadiska Ansal TV magacayga engineer gas baa la yiraahdaa walaal adiguna igu bilow Maxamed Daacad maxamed labadiina su'aal baan idin weydiinayaa waxaad ii sheegtaa wadankii ugu horeeyay oo muslimo oo ogolaaday dumarku inay codayn karaan wallaahi walaalay I think haddaan wadanka aan isku dayo maskaxdeeda yar ka shaqaysiiyo waxaan u malaynayaa inuu yahay Indonesia adigana wallahi su'aashaas kulli ugu adag tahay wadankii ugu horeeyay la dhahay qof dumar codaynaysa inay dumarku codayn karaan haddii kale ani ma garan lak haddii ani aan qiyaaso waxaan ku qiyaasaa Sacuudiga oo sheeko kale Sacuudiga aan ku warramo Maxamed Sacuudiga inta hadda boqor Salmaan iyo aabiyaha ay qabsadeen koor dumarku xataa baawur ma kaxayn jirin guryaha ku jiri jireen xabsi bay ku jiri jireen laakiin hadda markuu qabsaday boqor Salmaan kalaab neyd baa loo sameeyay baawurtay raacaan nigisay yar bay xidhaan magaaladay wareegaan Sacuudiga ma aha anaa diiday Sacuudiga ma okay mid kale idin weydiinaya marka taas waa isku qabsatay wadanka islaamka ee ogolaaday dumarku inay codayn karaan tan kale idin weydiinaya waxaad ii sheegtaan wax la jabin karo balse aan la qaban karin wallahi waxa igu socoli wax la jabin karo aan la qaban karin wala jabin karo de inaad yaray taas hadaan aragno baruurta ma aragtay anise ila tahay baruurta hilibka ma aragtay tusaale ahaan haddaad ka timi gobolada waqooyi galbeed ee koonfurta waqooyi galbeed ee Soomaaliya gobolada waqooyi hilibka aad looga cunaa waliba gobolka Ceerigaabo magaalada Ceerigaabo la dhaho waxa la cunaa idaha baruur badan weeye waa la jabin karaa laakiin lama qaban karo wuu kala sii lixanayaa de anu baruur bay la tahay su'aashaas horta waa su'aal fudud waa axdiga sidee loo jabin karin axdiga waa la jabin karaa laakiin lama qaban karo axdiga waa shay yani balan la jabin karo laakiin shay la qaban karo maaha wallaahi waa ila saxan yahay sababtu waxay tahay de axdiga ni warmay marmaan ka saxan dhaaf aday ku taalay ana ka saxan baruurta weeye السلام عليكم والله وانسل قاعد كلام غنايه قلبه ويسولنا مايا مرة أيوك هذا بيت السودو ما شاء الله ما أنت تيرو طيب ما شاء الله روح مين بنقطين ده كلام غنايه لا هو يدي فوكسون oo nin fiican baa kula socda maanta kii kula ninkii meehe ma sha Allah ninkii waa ka dib wax badan baa ka dibay isaga reebtana ka calool xumaan hayay bagal isaga reebtay nin qurux badan baa kula socda ma sha Allah ii waran fooksoo dhaweynaya maanta timir waan dhawahay rag waa kii wax rugrugo dumar waa kuwii raamsada laba ka hadhay
dumarra waa kuwii raamsada haddee timirtu waa caafimaad corona jira ma ogtahay corona iga dambeeyay waddanka intaan ka maqnaa corona ka dhacay waa ka afkaa la wada xidhay 4 saacna waa la xaroodaa yar timirta hawday ma daraanna timirteedu waa timirta guriga u sii qaata waan reewalay guriga u sii qaata hadda caaniga geel xagee ku dambeeyay caanihi walaal jigjigaan u raray hadda timirtaasaan baan wada degannahay hadda timirta hawday ma daraan caanaha waxay siin bay lahaayeen timirta xaysiin rag waa kii wax rugruga dumarra waa kuwii raamsada hoo iska raamsadee walaal xabadda iska raamsaaw ya kulay xilli xun baad gaajoonaysaa wuxuu daawanaysaa moogtaa waad maasan tahay waa ku soo dhaweynayaa asxaab badan baa horta ku xiistay aad iyo maanta salaad ku weydiiyaa maanta in arma salaad hay weydiina waa sanadkii hore aad ugu wareersay salaadee in armaanta wax kale weydiina salaadii wallahi billahi meel walba way taagan tahay aad iyo waxaan ku weydiinayaa su'aalan ku weydiinayaa su'aalahana ina isku daydid haddii aad garan weydin dadka ka faa'iideysanayo su'aasha ugu horreysa ku weydiinayo waxaad ii sheegtaa waddankii ugu horreeyay ee muslima ee ogolaaday dumarku inay codayn karaan maxaa tidhi igu soo celi bal waddankii ugu horreeyay oo muslima ee ogolaaday dumarku inay codayn karaan waddankii loo ogolaaday haweenku inay codeeyaan kii ugu horreeyey alla yaa hoosta iga sheega waxaan u malaynayaa buntland miyaa buntland waa buntland iska daa buntland weeye waa buntland iska daa anigu buntland weeyaan ku leeyahay ma buntland maaha miya inaad wax kale maad iigu beddeshid maya isku day waddankii ugu horreeyay ee muslima ogolaaday dumarku inay codayn karaan dumarka u ogolaaday inay codayn karaan haddaama somalilandba inaad ma jubbalandba inaad ma galmudugba inaad ma koonfur galbeedba inaad dee su'aashaa garan maayo waddankaana ma tegin ba anugu dumarku inay codayn karaan horta gorma ogaatay waddankaas dadka adigu gormad ogaatay dumarku inay codayn karaan waddankaas dadka wuu lugooyey intaan Kenya imaadeen baan ogaaday haweenku inay codeeyaan waliba waban reeb islaan la dhahan doortay waa dhaweyto islaan waban reeb aan doortay marka qoladii haweenka yiri haweenka hal la doorto dadka way lugooyeen anu waan cambaaraynayaa laakiin waddanka inuu buntland yahay baan u malaynayaa walaali halkaa bal iga hubso adigu waagaag su'aasha soo garanaysid mid kale ku weydiinayaa weydii walaal waxa la jabin karo balse aan la qaban wax la jabin karo waa la jabin karaa laakiin lama qaban karo inaad ma kubadda maxaa tidhi naabari ugu soo celi wax la jabin karaa la qaban karo inaad ma gaaf baan hor taagnay gaaf wax kale ma ku bedeshaa inaad wax kale aan ku bedesho maxaa tidhi igu soo celi walaal wax la jabin karo aan la qaban karin wax la jabin karo aan la qaban karin soo maaha inaad ma kubadda ma fataatiirtu ma jabtee horta ma soo ciyaartay hayaa haddaa magaalad ku dhalatay waxaan ku weydiiyey waxaanu garan maayo walaal wax kale weydiiyey waxaa ku weydiinayaa waad maqnayd wax badan waan maqnaa maxaa kugu soo layaab ma anugu hayaa naamo intaan maqnaa macnaha intii yareedan kala maqnayn labadii saneen kala maqnayn wixii igu la yaabka badnaa alla waxaan la yaaba u soo joogay gabadh yahay heesaad la soo yaabtay heestii ugu macaanayd xalaan dhegaysanayeba xalaan dhegaysanayey heestii ugu xikmadda fiicnayd ee sanadkan aan dhegaysto xalay baan dhegaysanayey wuxuu yidhi heestii waxay ahayd alleelahay mar horaan samey ani mar horaan samey ani mar horaan samey ha duulduulin derbiga qabso haduulduulin naa derbiga qabso naama meel la qabsadaad aragtaa adduunka hees ka xigmad fiican heestaa ma dhegaysan xalay waan yaabay haduulduulin wah ani mar horaan sameey ani mar hore ilaahay baa igu hal saac baan qoslay yaa adduunka heestii ugu xigmadda fiicnayd sanadkan heestaasay ahaydeen daawado marka adduun hormaray baan joognaa bal ii warran adigu maxay noo kala dambeeyey weydiiye ma ogelida walaal soo dhacdaynaysaa yaa waxaan ku weydiinayaa laba kaadhe laba timir yaa yidhi timirta intii kale aaway ma labada mise rag waa kii wax rugrugo dumarra waa kuwii raamsanaa timirtan wax gadanaya oo male galabtee waa sidee inaad intii kale waan soo gaday walaal labadaa un baa hadhay labaa ka hadhay ma kambani timirta 200 kaliya kii caanaha geeli baa guray walaalay geeli waa kii isnuugay qaarra wuu isnuugoo xalu isdhaadhiyey qaarra wuu guray qaarra jigjigaan u raray marka hadda timirtaasaan wadaa intuu dhalahayo timirtaan le aad ku sii sugtid hagaag aad waad u mahadsan hagaag waad mahadsan tahay asxaabta raba inaad su'aal weydiiyo aad waad u mahadsan tahay walaalo soo dhawow waxa kugu soo
waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kadiska ansal tv magacaaga magacaygu waa maxamed cumar cali maxamed oo ku soo dhaweynayaa su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinayo waxaad ii sheegtaa wax la jabin karo aan la qaban karin ku soo celi wax la jabin karo aan la qaban karin su-aashaas haddaan isku dayo waa dhagax suuri la jabin karo laakiin lama qaban karo waa diyaaradda dee haddaan isku dayo su-aashaas diyaaradda saan loo jabin karaa loo qaban karin walaa su-aashiisa way igu adagtaa aniga mid kale ku weydiinaya waxaad ii sheegtaa waddankii ugu horreeyey ee muslima oo oggolaaday dumarku inay codayn karaan waddanka ugu horreeyey ee muslima dumarka codayn karaan waxay ahaayeen waa sacuudiga walaa waa isku dayay laakiin waa isku degayga intaas aan maleeyaa laakiin aad baa magacaygu waa maxamed ibraahim cadow maxamed oo ku soo dhaweynayaa ee su-aasha ugu horreysaa ku weydiinayaa waxaad ii sheegtaa waddankii ugu horreeyey ee muslima oo oggolaaday inay dumarku cod leeyihiin ama cod codayn karaan waddankii ugu horreeyey oo muslima inay codayn karaan waan gartay waa maleeshiya okay mid kale kugu bedelayaa waxaad ii sheegtaa wax la jabin karo balse aan la qaban karin aan la qaban karin waa la jabin karaa laakiin lama qaban karo igu adagta su-aashaas walaal waxaa la yidhahaa sadaam shilaab oona ku dhawaayo mahadsantahay su-aalo la isweydiinayaa waxaad ii sheegtaa su-aal ah wax la jabin karo balse aan la qaban karin wax la jabin karaa aga hoos waxaanu maqalnay oo aragnay maba he wax la jabin karo waa ballanta waad jabin kartaa laakiin ma qaban kartid mid kale ku weydiinayaa waxaad ii sheegtaa waddankii ugu horreeyey oo muslima oo oggolaaday inay dumarku codayn karaan wallaahi taariikhda ma hayo juqraafiga waa lagaga fiican yahay odayga juqraafiga kale waad mahadsantahay soo dhawow adigu soo istaagta waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kadiska ansal tv magacaaga magacayga waa axmed haybe axmed oo ku soo dhaweynayaa su-aasha ugu horreysaa ku weydiinaya wax la jabin karo balse aan la qaban karin wax la jabin karo balse aan la qaban karin wallaahi su-aashaas haddaan isku dayo wax la jabin karo oo aan la qaban karin run ahaantii su-aashaas aad bay u adag tahay laakiin isku day waa inaad samayso waa muhiim soo maha waa kuu bedelayaa waxaad ii sheegtaa waddankii ugu horreeyey ee muslima oggolaaday dumarku inay codayn karaan waddankaa isaga haddaan isku dayo turkiga waad mahadsan